kamida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo maanta isugu yimid xarunta golaha gogosha gobolka Banaadir ayaa waxa ay taageero weyn u muujiyeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ee u dhawaan magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiye Maxamed Axmed Amiir xubnaha odayaasha oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub Maxamed Axmed Amiir uu yahay markaasi muwaadin Soomaaliyeed oo in muddo ah ay sugayeen isla markaana matalaya dadka deegaanka waxayna sheegeen in gudoomiyaha markii la magacaabay kadib uu qaaday talaabooyin aad u wanaagsan isla markaana uu ku dhawaaqay hadallo markaasi soo jiidan kara bulshada gudoomiyaha cusub ayaa markii uu xafladda ama xilka kala wareegayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in sababtu halkan u yimid ay tahay markaasi inuu u shaqeeyo shacbiga Soomaaliyeed waxa uu yiri waxaad igu qiimeysaan wax qabadkayga ujeedadeeduna waxa ay tahay inaan idin shaqeeyo ee ma ahan inaan idinka adeegto odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed oo ka qayb galay gogosha golaha gobolka Banaadir ayaa waxa ay muujiyeen taageerada u hayaan gudoomiyaha cusub qaar kamid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa mahadcelin u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa ay taageero u muujiyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir hambalyo waxa uu jeediyay gudoomiyihiina la bixi oo Banaadir oo laga dhigay aan u jeediyay Xasan Sheekh hadis gudoomiye ogolaaday oo bulshada soo dooratay os ogolaaday anagana waa raacnay Xasan Sheekh hambalyadaas adina waxaan ku soo diray intaas raxmaan raxiim aan war badan ma aqaano aqyaarta oo sharafta oo meeshan aad dadku u soo dhaweyso degan waa mahadsan oo maanta gooshaan dhigto oo dadku soo dhaweyso waa mahadsan gudoomiyaha cusubna markuu ku sida la wareegay wuxuu yiri aniga bacdi in wareegto lagu magacaabo muddo doorasho dhacayso anna hadda qoraab doorasho ka hadli jiray nimankan oo siyaasiyiinta oo doorasho diidan Facebook wax badan oo ku aragtay anoo dhac xisbi furta waa ku taageeraa gudoomiyaha waana ku dhawaaqay markuu Xasan Sheekh uu magacaabo ku sida la wareegay badalka baraa wuxuu aniga bacdi in wareegto uu dooran mar waa hadal wanaagsan oo hadalku adduunka lagu soo barto dad siyaasiyiinta ku hadlaan wanaagsan waay waana mahadsan yahay waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo taageero u dirayaa gudoomiyaha cusub oo gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Maxamed Axmed Amiir hambalyo waxaan mahad u celinayaa ballaaran madaxweynaha Soomaaliya oo federaalka madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golihiisa waxaad baan u celinayaa waana taageerana mahadna waa u celinayaa waan u hambalyeynaya wax qabadka oo qabtay iyo sidoo maamulka dawliga oo u wado iyo taageero aan ku taageerayna inuu wixii uu qabka ahay oo ka saaray dalka oo uu sameeyay doorasho qof iyo coda ummaddu u simanta nin alla ninkii rabtay ay dooranayso asigana waa ugu hambalyeynaa waan ku taageersanahay doorasho cod iyo codka waan u mahad celinayna waa madaxweynaha Soomaaliya wadaalka Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad waxaan dib ugu noqonayaa gudoomiyaha gobolka ee hadda cusub oo Ilaahay noo keenay annagana aad iyo aad maanta aan ugu fadhinaa halkaan Soomaali weynanahay gobolka Banaadir marka waxaan leenahay gudoomiye kii oo dalkan gobolka Banaadir ummadda dhan oo Soomaaliyeed waxay isku timaadaa oo xudun u ah gobolka Banaadir kii uu qabto si cadaalad sinaan wax ugu qabto horta Ilaahay ka dhigo waxaan kugu hambalyeynaa aad iyo aad ummaddu ay ku taageersan tahay waxa aad iyo aad Allah subhanahu wa ta'ala ugu mahadsan waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Xasan Sheekh Maxamuud magacaawida oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed Amiin aad iyo aad gudoomiye aad iyo aad aan kugu hanweynahay hadaladaadii murtida iyo maaragtay iyo waxtar kale waa dhageysanay waxaad tiri waxaan sameynaynaa region golden region aan sameynaynaa gobolka maaragtay dahabiga aan sameynaynaa
fikirkii aad dalka dibiddiisa aad kala timid oo wanaagsanaa in maaragtay gobolkan oo maaragtay horumarkiisa iyo maaragtay waxqabadkiisa gadoomiye aad iyo aadaan kugu bogaadinaynaa waana kaa rajaynaynaa maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha 12 2024 waxaa shir isugu yimid golaha gogosha gobolka Banaadir taasoo lagu taageerayay gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Axmed Amiir gudoomiye golaha wuxuu ku leeyahay soo dhawow taageero garab istaag iyo hambalyo ayuu diyaar ku leeyahay gudoomiye golaha wuxuu kaloo ka sugayaa cadaalad sinaan iyo horumar intaas kadib qodobka labaad waxaan sidaas oo kale hambalyo u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee gartay in gobolkan Banaadir bulshada joogto ninkii samata bixi lahaa ee gogosha xamar tabashada ka tiri lahaa inuu magacaabay mudane madaxweyne waa kugu hambalyaheynaa barnaamijkaasna aad aan u soo dhawaheynaa qodobka kale xiga waxay ila tahay madaxweyne waxaan kugu taageeraynaa kugu hambalyaheynaa orahdii ahayd bulshada Soomaaliyeed in ay u jeesatay qof iyo cod waxaan leenahay golahan oo gobolka Banaadir gogoshiisa ah oo ka kooban Soomaaliya oo dhan wuxuu diyaar u yahay 4 milyan ilaa 5 milyan qiyaastii ummadda joogto madaxweyne waxay diyaar u yihiin orahdii adiga aad soo jeedisay oo ahaa qof iyo cod in ay barnaamijkaas garbaha ka taagan yihiin diyaarna u yihiin xuquuqda ay leeyihiinna meeshaas ay ku qaadanayaan adiguna waa kugu hambalyeynayaan intaas kadib maadaama goluhu oo yahay golaha dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir waxaan baaq u direynaa anoo ku hadlayo magaca gobolka magaca golaha colaadaha ka jiro geyiga Soomaaliya gaar ahaan midda ka jirta soonka shanaad ceeragaabo galgaduud hirshabeelle intaba waxaan leenahay walaalayaal dagaal waa dhamaaday waqtigii qori lagu xalinayo waa dhamaaday waqtigii nabadda lagu raadinayo codka iyo afka la jooga dagaal wiilkuma dhasho wiila ku dhinto waxaan idinka codsahaynaa annagoo ummadda Soomaaliyeed ka kooban ahna gogosha gobolka Banaadir inaad dagaalka joojisaan adigeed qiimaadkan ilaahay noo suurtageliyay alxamdulillah awoodeen iyo xeeladeena kuma aanaymaan waa ilaahay mahadiisa ilaha oo mahad celinaa mahadda koowaad Allah iska leh mahadda labaad dadkii gogoshaan noo fidiyeen oo intaynaan iska keeneen iyo ayagana u celinaya mahadda oo labaad insha Allah taala meeshaan war badan kama furno insha Allah waa mahad celin iyo boga iyo soo dhaweyn gudoomiyaha aan jecelnahay cusub gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed waxaan leenahay maxamedkii bishaaro keenay Allah ka dhigo gobolkan dadkiisa waa dulmanay gobolkan Banaadir wax badan ay dulmanayeen insha Allah taala waxaan rajaynayaa kii ka bixi lahay oo barwaaqo u horseedi lahay inaa adiga noqoto insha Allah taala madaxweynahana waxaan leeyahay yaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud meeshay mudneed ayaad marsiisay in badanaan ka sugayna garasho la'aana kama ahayne wax kala xeerihiisa uma leeyahay haddana meeshay mudneed aad marisay waxaan leenahay madaxweynow ilaahay meeshaada Allah ugu nageeyo cadaaladana Allah ku tuso waaba ka shaqaysay cadaalad Allah ku tuso insha Allah taala wixii dhimanna oo ay tirsanayaan gobolkan Banaadir ummadda ku nool waa 4 milyan xaga u dhaafay waxaan rajaynayaa in yani inta dhimanna
aad u soo dhammaystiri doonto ilaahay hadduu yidhaaho oo yacni u horreeyo maqaamkii magaaladan ugu horreeyo insha allahu tacaala inaad soo dhammaystiri doonto kulligiinba waxaa idin rajaynayaa ilaahay aadii la garab galo guddoomiye xilwaana lagu saaray ilaahay ha kula garab galo. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد لما أخيار تقيمها خايها بدن مدشان قيمها بدن كسوان وحمد السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ماشي أنا وحان سكوغني مد مانتا همبليو ديران إلى قدرنا قدوميين عصبي قبل كبنادر محمد أحمد أمير وحان لينا هاي قدومي سود واو dadkan waa dadkii ahlu beledka ahaa akhyaartii hogaaminaysay oo Soomaali weyn ay ka koobantay maanta waxay iskugu yimaadeen inay taageero kal iyo laab ay meeshan kaga soo jeediyaan waana ku mahadsan yihiin xafladan qiimaha khaayaha badan inay adiga markaysa ay kugu xusaan waa mid laga sugayay dadka reer Banaadir waxaan kaloo hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda wadana Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne maanta aad haleeshay meesha mudnaysiisay maanta waa ku mahadsan tahay in dadka reer Banaadir waxay sugayeen maanta aad u keento aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa guddoomiyahana waxaan leenahay hadda waa hawshii gacantaada ku jirtaa biidnillaahi albaari ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay kula garab galo midkii gobolkan Banaadir horumar iyo wanaag iyo bulshada isku xirkeeda ka shaqeyn lahayn inuu ilaahay ka dhigo anagana waxaan haween iimaan u taagannahay inaan kula shaqeyno haddaan nahay dadkii ahlu beledka ahaa beledkan dadkiisa oo ahlu beledka waa ku dulmanaayeen maanta laakiin waxaan jeclahay hadduu ilaahay yiraahdo qofkii ka bixin lahay dhibaatada gobolka Banaadir una horseedi lahay masiirkan gobolka Banaadir ninkii soo celi lahay sharafka iyo karaamada dadka Banaadir ay leeyihiin ku dhaqaaqi lahay ina adiga tahay waan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir warjiro joogan ku dheelahay waxaan mahad kale u sii celinaynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh waxaan leenahay adigana de jira joog kow hambaliyayna iyo bogaadintayna waxa waaye muxubaan naga keentay inaan madaxweynahan u hambaliyayno aan u hambaliyayno gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho aan u hambaliyayno waxaan naga keentay idna muxubaan naga keentay inaan taageero u buuxino muuqato la yaqaano tusno waa loo baahnay mar kastaba waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha Soomaaliyeed ee sharafta badan ee halkan isku yimid waxaan ku salaamayaa 114 Quraanka Kariimka ah salaanka bacdi halkan waxaanu maanta u fadhinaa taageerada gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay waxaan asagana gubaabin u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh waxa weeye gobolka Banaadir wax badan oo sida dhaafinaha jirtay gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay laba waxyaabood buu ku boorinaynaa waxyaabaha ka jira gobolka inuu xooga saaro inuu saxo oo dariiqii gobolka Banaadir uu ku soco jiray lagu soo celiyo midda kale golaha halkan maanta Soomaaliya isku timid ee gogosha Banaadir ah oo dadka sharafta badan la isku yimideen waxay soo jeediyeen aanu halkan isku dhaafsanay erayo aad u wanaagsan oo Soomaalinimada iyo maamulka iyo sidii mataqaan loo qaybgeli lahayd nabadda iyo hadda Soomaaliya waxa ay higsanayso oo qofka bilaadanka inuu si xura u doorto qofkii uu doonay talaabadaas golaha halkan isku yimiday Soomaaliyeed gogoshii Banaadir ah si aad iyo aad u weyn waxaan u rajaynaynaa in waxyaabaha ay ku haminayaan inay ku guuleystaan
ummadda Soomaaliyeedna ay ku mahadiso oo ay ku guulaysato waxa kale oo sii weliya markii gogoshaanu halka aan ka baqadno waxa loo gudbi doonaa gobolada Soomaaliyeed hadda waa gobolkii Banaadir waa bilowga gogosha waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa dadka fikirkaas keenay oo maanta halkan isku keenay aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa madaxweynaha sharafta badan fikirka uu soo jeediyo waa qof walba codkiisa inuu ku rido santuuq aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waxaanu ka rajaynaynaa in nabadu ay ku fido oo wadankeenu hadda waa nabade ay mid aad iyo aad loogu guulaysto ay noqoto golaha golaha gobolka Banaadir aad iyo aad ayaan mataqaanaa ay mahadsan yihiin mahad ka bacdi waxaan rabnaa halkaan usoo istaagnay inaan mahad iyo bogaadin iyo hambalyo isku dirno gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Maxamed Axmed Amiir waxaan kaloo halkaan hambalyo iyo bogaadin ku diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu soo doortay gudoomiyihii aanu sugaynay muddo badan kaasoo aan rajeynayna mustaqbalka inuu gobolka Banaadir ka saari doono dhibaatada iyo isheeg waxyaalaha fara badan ee tabanayso ayaan rajeynaynaa insha Allahu tacaala inuu ka saari doono gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir maadaama uu yahay nin mutacalima aqoon-yahana wax badan ka shaqeeyay magaalooyinka runtii aad iyo aad ayaa u farxnay markii loo soo magacaabay gudoomiyaha cusub gobolka Banaadir Maxamed Axmed Amiir gudoomiye waxaan leenahay garabkaada ayaan taagannahay waa kula shaqeynaa diyaaraan nahay haddaan nahay golahan maantay soo qalqaaliye gobolka Banaadir garabkaada ayay taagan yihiin gudoomiye waxaa laga rabaa in golahan golo Soomaaliyeed waaye ma aha golo isheeg gaar maahan waa golo isheeg Soomaaliya waa gobolka Banaadir waa loo dhan yahay waxaa loo baahan yahay in golahan il gaar ku lahaato oo la shaqeyso oo garabka isqabasitiin ayagana kula shaqeeyaan ayagana ay mataqaanaa la shaqeysid maadaama yihiin golihii gobolka Banaadir oo loo wada dhan yahay waxaan kaloo gobolka Banaadir maamul badan soo maray nibo maalmo soo gaarsiiyey waxaan ka rabnaa kolley wax badan ayaan gobolka ku tabaynaa waxaa laga sugayaa gudoomiye maayar cadaalad aweysooday hoyga Banaadir TV Muqdisho.